maran yahay qashin baa ka buuxa laakiin muddo aan fogeyn waxaa ka buuxay dad wax ka dhigan ciqaab adduun astaan ayuuna u ahaa wax kastoo bini'aadam ku dhibsado jeelkan wuxuu ka kooban yahay 6 qaybood qaybtan waa tii ugu darnayd waxay gaar u ahayd cadowga taliskii hore si gaar ah xubnaha ONLF iyo dadka ku eedaysnaa inay taageerayeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay sheegeen in halkan ay ka dhaceen qarracan aanu la malaysan karin jirdil kufsi ciqaab waxaa u dheeraa qolal yaryar oo mugdi ah oo xitaa maanta oo ay maran yihiin qofkii gala uu naqaska ku dhegayo waa argagax meerto ah ilaalada ayaa diidmada amar la siiyey ugu xigtay inay ku biiraan kuwii ay ciqaabayeen biyana la geliyey burilbaan loola dhacay aniga lugta waan ka jabanay hadda lugta waad aragtaa waa sidii macnaha bakoor leela dhacay baan macnaha jabay waxaan jirin sheeg haawaan way dheeriyeen dheh dadkan biyana macnaha meesha lagu shubayaa si aynu soo bixin sawirkaad arkaysaan baa macnaha ayaa lagu sameeyay sawirkaad arkaysaan waxa lagu sameeyay si ay biyo u soo bixin kan meena lahayna meesha meel banaan bay hay Maryam Macallim Cabdullaahi waxay ku xirneyd qol yar oo ku yaala qaybta dumarka 4 bilood baan bartaa seexan jiray oo maalin gabadh askariyada oo xabashada sagal leeyahay waxay ii xaday habeenkii taraaleeda bisteeda busta maarta ciidan oo nooc madow eega noocahan ay googladaan oo kala noocan hayn habeenkii ama bisteeda dhigan jiray habeenkii taraha leedahay 4 bilood saddexdii habeenba bisteeda jiray gabadhaas markay timaado si ma halkan sida ugu ahaa wala qaal jiray waxa la geyn jiray gudubka sida la igu garaacayo waa la soo celin anoo qoyan anoo rafaadsan baa la soo celinay keeni marka la keeno halkan taa la qabto markan kicwa lagu hayo gacmaha la qabanay sawirkan waxba kaaga hooseynin waa la igu soo tuuray marka kuwii ka soo baxay halaagan mar dambe ayay nasiib u heleen inay noolaadaan laakiin ehelada kuwa weli raq iyo ruux balala yahay weli muruga ayaa hayso Caasho Axmed Daahir waxay saygeeda ku ogeyd halkan 8 sano ka hor aan dareemay hadda ma qiyaas karaba muddo 2 sano waxa ma garanaynin ciyaalka yar ma la daala dhacayay waqtiyaan xitaa ciyaalkayga macnaha ka baynunay way jirtaa aad dhibaato aad u adag baan dareemay halkii meel bilaanti ugu dambeysay jiloogadeen baan gudiisa ugu dambeysay soo gujir kuwan waa bustayaasha iyo sariirihii ay ku seexanayeen maxaabiistii halkan ku xirnaa muddo 10 sano ah waxaa la sheegay inay tacaddi ka dhana xuquuqda aadanaha kala kulmeen ilaaladii halkan sida lagu sheegay baaritaan ay sameeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha dadkii ugu badnaa ee halkan ku xirnaa waxaa lagu eedeeyay inay ka soo horjeedeen siyaasad ahaan maamuladii hore waxaa xabsigan horey loogu xiray madax wasiiro saraakiil ciidan oo gobolkan hore u soo maray hadda waxaa lagu samaynayaa dayactir si looga dhigo madxaf taariikheed oo dadka ay u aadaan inay soo arkaan in ku dhow 20 sano 10,000 oo qof ayaa halkan lagu ciqaabay waxaana la rajaynayaa inuu u noqdo waxbarasho iyo tusaale jiilka dambe si taariikhdii madoobeed ee jeelkan aanay u dhicin mar kale Axmed Xaaji Xasan BBC Jigjiga